nabaday dhammaanba asxaabta qaaliga ah meel aad joogtiinba daafaha dunida kusoo dhowaada barnaamijkeena galabta oynu ku soo qaadanayno hawada nadiifowday, hawada isbedeshay, hawada fiicnaatay ee dabiicigeeda kusoo noqotay muddo 2 bilood ilaa 3 bilood gudahood iyo sababta keentay. guud ahaanba barnaamijkeena galabta oo aynu ku wajahayno oo aynu si toosa ugaga hadlayno isbedelka fayraska corona oo sababay hawadu inay wanaagsanaato, dabcan isaga oo dhinaca kalena khasaaro badan ku keenay guud ahaanba caalamka, dad badanna galaaftay oo naf badan oofsaday. haddana bal dhinaca cimilada saameynta uu ku yeeshay ayaynu barnaamijkeenan ku qaadaa dhigaynaa. daawasho wanaagsan. guud ahaanba caalamka, gaar ahaan wadamada horu maray ee shirkadaha waaweyni ka jiraan, ayaa waxaa laga dareemayaa hawo saafi ah, cimilo aada u wanaagsan oo isbedeshay oo qurux badan oo in muddo ahba aan la arkin. gaar ahaan wadankaasi Hindiya, caasimada Bombay, ayaa waxaa si toosa loo arki karayaa cirka oo buluug saafi ah oo hadda ka hor ay dhif iyo naadir ahayd in cirka la arko caad ka horeeya mooyaane. dabcan caad ma ahayn ama daruur saafi ah ma aha iyo dhadatoona ee waa qashinka iyo sunta ay shirkadaha waaweyn iyo gaadiidka tareenadu ku sii daayaan oo hawada si toosa u fadhiya, kaasi oo cimilada iyo neefsiga iyo roobkuba uu noqonayo mid aan wanaagsanayn. dalalka dhammaan horu maray ayaa haddaba gebi ahaantoodba waxaa la arki karayaa hawada saafiga ah iyo cirka saafiga ah iyo daruur dabiici ah. waxaa jirta imika ayaamahan dambe in dhammaan dadku ay hadal hayaan cimilo wanaagsanaatay iyo dhirta oo guud ahaanba isballaadhisay, aad iyo aadna u qurux badnaatay. haddaba dadka u ololeeya ama ururada u ololeeya hawada ee ka hortaga sumowga hawada iyo cimilada sii xumaanaysa ayaa imika runtii waxyaabo badan ka qoray oo hadda ku howlan isbedelka ku yimiday iyo sida looga maarmi karo shirkadaha ama loo yareyn karo, iyaga oo doonaya inay alolahooda ku xoojiyaan qiiliyo qodobna u soo qaadan doona arrintan coronavirus oo keenay inay albaabadu u xidhmaan shirkadaha. haddaba coronavirus ayaa sababay xaaladan noocan ah, inkastoo dhinaca kale sababay oo uu go-oofsaday nafo badan oo dunida korkeeda joogtay, maantana ciidda uu hoos mariyey. in badanoo ummadda ka mid ahna ay guryahooda gaajo ugu jiraan, iyaga oo ka cabsi qaba haddii ay bannaanada u baxaan in ay xaaladda xanuun la kulmaan. si kastoy ahaataba barnaamijkeena galabta oo aynu ku guda jirno hawada iyo isbedelka ka yimiday ayaa ah mid aad ugu muhiim ah. hawadu inay nadiif oo noqoto mid dabiici ah, basharka, xoolaha, xayawaanka, dhirta iyo makhluuqaadka ilaahay ku uumay ama ku irsaaqay nolosha dhulka. sida aad badankiin ogtihiin, waxaa ka jira wadamadaasi aynu ka sheekaynay in marka uu roobku da'o dallad la wada qaato oo dadku dallado ka qaataan roobka. ma isweydiisay daawade sababta ay dallada ama uga hoos galaan ee ay dalladaha u qaataan?
dabcan ma aha biyahaasi bay diidayaan, way wada jecel yihiin dadku bini aadamku roobka, laakiin waa roob aan nadiif ahayn oo aan caafimaadkiisu fiicnayn oo markaasi wasakh badani ku jirto. sidaas darteed jidhka bini aadamka ama skin bodyga dadka bini aadamaha inuu ku keenoba xanuuno ayaa looga baqaa, oo dalada ay uga qaataan dadku xilliga roobku da'ayo. dabcan dhinaca soomaalida ama deegaanada soomaalidu ku nooshahay way ka duwan tahay. dadkeenuna waa dad aad roobka u jecel oo xilliga roobka jecel inay dhex qaadaan ayaa ah in cimilada dhulka soomaalidu aad u wanaagsan tahay, shirkado iyo wasakh hawaduna aanay jirin, taasi oo ka dhigaysa roobka ka da'aya inuu ahaado mid caafimaad qaba oo dabiici ah. gebi ahaanba barnaamijkeena maanta waynu ku soo qaadanaynay arrintan isbedeshay. waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.